biyuhu lookisida waxay ku nooshahay meeshan Towa iyo Bando hadda waxay diyaar u yihiin cashir maxaa yeelay kikaanagu waxay xeel u dheer tahay dilista lookisida qaylada lookisiga waxay cadeynaysaa inay u baahan tahay caawimaad laakiin waxa haya goosha 10 bil kadib ayay Townda and Panda u diyaar garoobayaan cashir ayagoo fiirinayo habka ay hooyooyinkooda u warsanayaan laakiin nafsiib darro lookisidii kale ayaa ka soo gaartay tii la haystay laakiin lookisidu waa mid marwalba isku tiirsan laakiin Towa and Townda hooyadu way har laadahay waayo waxay ka fakaraysaa ilmaheeda lookisidu waxay ka weyntaa oo ka awood badan tahay libaaxa 5 mar laakiin hadda noloshu waa mid adag laakiin dhinaca kale Towa and Townda waxay ku jiraan qatar marka arabti inaad disho lookisiga waa inaad kala qaybisaa awoodooda sifa aad u disho laakiin isla markii gooshi ayaa waxay ku heshay Janice lookisida mid ka mid ah laakiin Townda and Towa hooyooyinkooda ma ahan kuwa cabsado waayo waxay u dagaalamayaan si ilmadu ku qooda lahaayeen Townda hadda wuxuu yaqiinsaday inay qatarti dhamaatay Panda hadda wuxuu yaqiinsaday inay qatarti dhamaatay wax badan oo geeda gaashiisa ugu gambanayay markii lookisida dhulka ay dhigaan Towa and Townda waxay caawiyaan hooyooyinkooda markaasna waa inay la soo baxaan awoodooda sifa ay u muujaan inay awood leeyihiin oo ay dili karaan ugaar laakiin qaylo badan kadib lookisidu ma ahan mid wax caawinada helaysa markaan xaaladdu way ka adagtaa tidii hore waayo hadda dhulka ayay taal lookisidu ma ahana mid caawinaad helayso mana ahan mid ka badbaadayso micyaha dheer ee libaaxyada iyo libaaxyadan gaajeysan sida looga badbaadane waa adag tahay noloshu hadda waxay u baahan tahay in safar dheer la geliyo Towa iyo Towndani waa sida ay sugayeen in ay mar ugaar dhulka dhigtaan laakiin isla markiiba qaylo ayaa ka soo yeertay dhinacaan waa qaylo qaldan waa qaylo dhinaca kale ka imaatay waa qaylo sax laakiin gooshi ayaa isla markiiba qabatay laakiin hadda walaalihii gaajasnaay cunto ayay heleen ku filan cawshaana waxay ka dhigaysaa mid ayaga ay cuni karaan waayo waa mid aad u jircan markii la barbar dhigo lookisiga Panda iyo Townda hadda waxay haystaan fursad aad qaali u ah ay ku cuni karaan hilibka labadooda kaliya waayo cawsha waxa looga tagay ayaga oo kaliya maxaa yeelay waxa waaye qoyskan labada ugu yar oo hadda soo korayaan maalmaha kamid ah sidan waa u dili doonaa lookisi labadii walaalaha ayaa dhaheen laakiin hadda noloshan aad ku qaaligu ah ayaan ku noolnahay aabahoodna waa mid ka ilaaliyo qoyska meel aad u dheer waayo cadawgooda ayaa aad u badan
waqtigooda ugu badanna waxay ku bixiyaan bannaanka waayo sifay u difaacaan qoyskooda. meeshan ay hadda ku nool yihiinna waa meel aad khatar u ah nolosha labada walaalaha ah. walaalahana mar walba waxaa garabkooda taagan hooyadood iyo aabahooda. laakiin labadii aar waxay u baaqeen labadii goosha ahayd sifa ay ayagana cuntada hadda labada aar ay u cunaan labada goolna ee bannaanka ugu ilaaliyaan familiga. laakiin hadda qoyskan waa qoys aad u faraxsan oo isku kalsoon, laakiin biri sidaan ma ahaan doonaan. labada walaalahana meeshan cashir aad qaali u ah ayay ka qaateen waayo waxay arkaan sida meeshan ay hooyada iyo aabuhu isku respect gareynayaan. noloshana hadday bilow tahay. The nomadic females may get a chance to eat, but the juvenile male won't be tolerated.